hal fikrad oo kaliya ayaa ka dhigi karta qani markaad yartahay waxaad haysataa aragti quman oo qurux badan kuna qotonto sidii noqonayso noloshaada markii aad weynaato si kasta wadadu ay u tahay mid aan hagaagsaneyn oo dhib iyo raf iyo qodxa badan ay leedahay aakhirkii way rumowdaa riyada noloshu waxay awoodi kartaa la dhaqanka dad kala duwan inay ula dhaqanto si kala duwan laakiin fikir fudud ayaa ku horseedi kara horumar kaasi oo gebi ahaanba ku keenaya noloshaada isbeddel weyn waase haddii aad la timaado qorshe lagu filinayo fikirka waxaan kula wadaagi doonaa qiso ku saabsan halabuurka ganacsiga dhabar adeega dhiirigelinta ganacsiga aad adigu leedahay ka xorowga shaqaalinimada aragtida fog fiishinka anigoo cuskanaya qiso dhab ah oo ku saabsan arrinka barnaamijkeenu maanta waxa uu ku qatamaa nin la yiraahdo Duwan Chang intaanu gelin muuqaalka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii uu muuqaalka ku cajabiyana mudnaantiisa si oo like ugu roonow maxaan kuu sheegi karaa oo ku saabsan Master Duwan Chang hagaag waa inuu yahay bilyaneer maba xume inuu yahay bilyaneer su'aasha iyo biyadhaca barnaamijkeenu waa sidee ku noqday bilyaneer ma aha ninka ugu taajirsan dunida ma aha laba xitaa ma ahan ninka boqolaad dabcan waa ninka 162 ee ugu taajirsan dunida waxa uu haystaa adduun gaaraya 5.4 bilyan oo dollar sheekadiisu waa mid soo jiidasho leh waa mid ka mid ah sheekooyinka markii aad aragto aad u malaynayso in laga sheekay wax qiyaali ah Duwan Chang waa South Korean waxa uu dhashay sanadkii 1954 waxa uu ahaa faqiir qabitaanka iyo doonista weyn ee shaqo waxay ku jirtay ilaa yaraantiisii markii uu weynaaday waxa uu ka shaqo bilaabay koob lagu iibiyo kafayga ilaa markii dambe uu isu bedelay inuu qaxwada dadka ugu geeyo delivery sanadkii 1981 Duwan Chang waxa uu safray Mareykanka isaga iyo oridiisii gaar ahaan Los Angeles isla markiiba waxa uu bilaabay 3 shaqo inuu isku qabto waxa uu ka shaqayn jiray xarun qaxwada lagu iibiyo subaxii waxa uu kale ka shaqayn jiray kaalin shidaal galabtii halka habeenkii uu wardiye ka ahaa baqaar dhar si kastaba ha noqotee markuu in muddo ku noolaa gobolada Mareykanka qaarkood waxa uu ogaaday in dharka faashiyonka uu noqon doono tikidkiisa guusha isagoo ku saleynaya in dhammaan dadka hantiilayaasha ahi ee isagoo ku xeeran ay yihiin dad daneeya dharka faashiyonka sanadkii 1984 isagoo adeegsanaya mushaarka 3 shaqooyin Duwan Chang wuxuu awood u yeeshay inuu furo dukaankiisii ugu horeeyay ee ku yaala aagga Highland Park ee Los Angeles waxa uu ku magacaabay Fashion 21 wuxuuna soo xirtay macaamiisha labada dal Korea Mareykanka sanadkii ugu horeeyay oo kaliya ayaa waxa uu iibiyay iib ku kacay 35,000 ilaa 700,000 oo dollar si kastaba ha noqotee markii ganacsigiisu kobcay waxa uu jeclaystay inuu ballaariyo tirada dadka ee macaamiisha ah Chang wuxuu bedelay magaca ganacsigiisa isagoo ugu yeeray Forever 21 si uu u hanto macaamiil fara badan wayna u shaqaysay wuxuuna awood u yeeshay inuu ka furo xarumo cusub Mareykanka iyo xitaa magaaladiisii uu dib ugu laabtay koonfurta Korea 5 sano gudahooda waxa uu furay 11 dukaan isagoo furiyay 6 bilba xarumo cusub sanadkii 2009 waxa uu ahaa sanad aad u adag qof waliba haba u sii darnaatay meheradaha ganacsiga hoos u dhac dhaqaale darteed Chang ayaa ku qasbanaaday inuu sameeyo dhowr qiimo dhimis isla markaana xiro 7 ka mid ah xarumihiisii si kastaba ha noqotee ma noqon dhamaadkii burburka maskax shiilkiisa iyo fikirkiisa ganacsiga uu soo kordhiyay si dhaqso ayuu soo kabsaday wuxuuna sii watay kobciisii waxay hadda leeyihiin in ka badan 600 xarumood oo dunida dacaladeeda ah in ka badan 15 wadan oo ay ku jiraan mid ku yaala Birmingham iyo mid ku yaala London UK Chang waxa badanaa la maqlaa isagoo leh guusha waxay timaadaa oo kaliya marka la helo faham ku filan ganacsiga iyo dhaqanka sharciga ee ku lug leh ganacsiga guusha ma ahan dash race ee waa marathon ayuu yiri yacni ma ahan tartan kaliya aad ordayso laakiin waa tartan furan oo dadka dhan wada hardamayaan guushiisu oo mid aan dhayalsi lahayn ayaa keentay inay dhiirigelin u noqoto dadyo fara badan oo Aasiyaan ah inay yimaadaan Mareykanka iyagoo leh riyooyin waaweyn ayna doonayaan inay ka dhabeeyaan mar la weydiiyay su'aal ahayd sidee buu ganacsigaagu ku noqday mid hore u socod yeesha ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan u taaghaynaa isbedel had iyo jeer waxaynu ka fikirnaa macaamiisha kama fikirna shirkadeena taasi waa mid soo dadajisay guusheena waxa uu kaloo yiri fashionka dumarka waa mid adag maxaa yeelay waa mid maalin kasta isbedelaya dooqooduna waa mid dhaqsi isku bedelaya sidaas daraateed waqtiga waa shay muhiim ah haddii aad ka gaabido adigana dib u dhacaysa sidoo kale haddii aad horeydo adigana waad hormare ganacsigan waxa qayb weyn ka geystay xaaskiisa oo door muhiim ah ku leh kobaca iyo korinka shirkadda maadaama waxay ka shaqeynayaan ay ahayd dhar dumar isagana ay kaga haboon tahay dhankaasi sidoo kale waxa shirkadda ku soo biiray 2008 laba gabdhood oo
ay dhaleen iyaka kuwa oo hadda door muhiim ah ka ciyaara howlaha shirkadda. mid ka mid ah tactiikada ay adeegsadeen sidii ay u horumariyaan ganacsigoodu wuxuu ahaa inay marka hore daraasiyeen waxay iibiyaan iyo qaabka ay u iibiyaan dadka iyaka la tartamaya, yacni dadka iibiya waxay iyaku iibiyaan. dabaytana waxay ogaadeen inay ku iibiyaan qiimo sare, kadibna waxay sameeyeen naqshado wanaagsan oo dhar iyo kaba dumar ah haddana qiimo jaban. taasi waxay keentay inay soo jiitaan macaamiil fara badan. ganacsiga marka laga hadlayo waxaa la sheegaa inuu yahay fikir, qofiba qofka uu ka fikir badan yahay ayuu kaga wanaagsan yahay dhanka ganacsiga. haddaba gabagabada barnaamijkeena iyo nuxurka sheekadu ayaa ah waxa uu yimid Maraykanka isagoo aan taana haysan, laakiin haysta riyo weyn oo indhihiisa hortiisa taala. taa uu doonayay inuu rumeeyo aakhirkiina waa ka dhabeeyey, waxauna dhisay boqortooyadii ganacsiga qoyskiisa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad tahay markii kuugu horreysay ee aad soo boqoto kanaalka, fadlan nagu soo biir kana mid noqo asxaabta ku xiran halkaani. intaan barnaamij kale ku saabsan ganacsiga aan kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.